wuxuun baan islahaa dabkii baxayaa dab lagu qabsadaa halgankaa ka socda caasimadda ee golaha deegaanku hogaaminayo ee maayirku hogaaminayo ee meel kasta wada laga sameeyey indhaheenu wax ku darsado waayo dabkii baxayaa dab lagu qabsadaa baa la yidhi taasi ay keentay halkan hunguriima keenin lacag ma soo doonanin markaan arkay sida madaxdu ay isu xilqaameen oo maayirku kow ka yahay ayaan aniguna yidhi maxaad ku beerin kartaa dabadeetna waxaa ii muuqatay halganka aan ka geli karaa inay tahay habqoraalka af soomaaliga maadaama aanan cagaf lahayn haddaan cagaf hayn lahana waan keeni lahaa haddaba la soco haddaan iskorgo leeyahayna waan keeni lahaa laakiin halkii iskorogada iyo halkii cagafta aniga waxaa igu jira qalin dhankoodana waxaa halkaasi ka hadlay duqa caasimadda hargeysa mudane cabdikariin axmed mooge oo tababarkaasi soo xidhay iyo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda dowladda hoose oo halkaasi iyaguna ka jeediyey kelmado dhiirigelina oo ku saabsan aqoonta ay kororsadeen xogaymaha kala duwan ee dowladda hoose tababarada noocan runtii waxay ka mid yihiin reformka shaqaalaha dowladda hoose ee maayarka caasimadda hogaaminayo oo runtii qaybo badan markaa taabanayay iyadoo ay tababaraduna qayb ka mid uun ahaayeen reformka tababaradaasu markaa isugu jiray kuwa maayarku runtii shaqaalaha qaarkood dibadda uu ugu diray kuwa runtii gobollada dalka lagu soo tababarayay iyo kuwa gudaha caasimadda lagu tababaray iyo qaar on job training joogta alsiini arrimahaas ujeedooyinka laga lahaa waxay ahaayeen in kor loo qaado xirfadda iyo aqoonta shaqaalaha dowladda hoose si markaasi ay markaa output fiican ay u yeeshaan shaqadoodana ay uga muuqato adeegyadii bulshada ay siinayeenna runtii ay kor ugu kacaan